shirweynaha wacyigelinta diiwaangelinta doorashooyinka Puntland ee beesha Cabbaas Muuse Dir ayaa shir ay isugu yimaadeen magaalada Baran waxa ay ku taageereen doorashada qof iyo cod ee ka bilaabantay gobolka Sanaag waxaana ka soo qayb galay isimada salaadiinta cuqaasha dhalinyarada haweenka qurba joogta culimada iyo qaybaha kala duwan ee beesha waxayna taageereen soona dhaweeyeen diiwaangelinta ka bilaabantay gobolka Sanaag sidoo kale waxay ku wacyigeliyeen bulshada beeshaasi inay diiwaangeliyaan madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni ayay uga mahad celiyeen barnaamijka qof iyo cod marka hore waxaan soo dhaweynayaa doorashada qof iyo cod waanu taageersanahay waanu soo dhaweynayaa waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha Puntland mudane Dr. Siciid Cabdulaahi Deni waxaanu leenahay madaxweyne waa ku mahadsantahay doorashada qof iyo cod waanuna taageersanahay waxaan sheegayaa beesha Cabbaas Muuse meel kasta ay joogto intay ka dhacayso diiwaangelinta Puntland inay isdiiwaangeliyaan diiwaangelinta loo taago waa codkeena wax ku goosanaynaa wixii codkeena noo goynayo badarika maalin waxa noo ah xaqeena iyo xuquuqdeena inaynu ka helin barnaamijka ololuhu uu yahay ee ka socday bariyaha Puntland waxaan ku ammaanaynaa madaxweynaha Siciid Cabdulaahi Deni oo aad ugu dhiirraday hadaan nahay beesha Cabbaas Muuse dadkii bay ahaayeen Puntland wax ka asaastay waa wada dareensanahay waxaa loo socdaa one man wafod waxaa hirgeli doona insha Allah in cod wax lagu kala goosto cid walba ay codkeeda wax ku qaadato insha Allah waxaan dareemaynaa beelweynta Cabbaas Muuse inay kaalinteeda ka soo bixi doonto muhiimadda halkan isku nimay waa doorasho maahan waa isdiiwaangelintana insha Allah in badan baynu cabanaynay qofku maanta gacantiisa fartaadiyo ku ciidan bay taagan tahay hadeer waa one foodo qof walba codkiisa wax kula soo bixi doona maanta wixii ka dambeysay Puntland oo dhan ba 24 sano kadib waxay u gudubtay barnaamijkan one man one fooda marka muxuu tarayaa wacyigelinta diiwaangelinta maxay taraysaa diiwaangelintu waxay taraysaa waa xuquuq qof walba asaasi ah oo qof walba muwaadin oo Puntland uu leeyahay waxay taraysaa qofka inuu cid alla cid uu doonayo oo gacantiisa ku doorto waxaan badiyaa ducada Ilaah baa daayinay inuu tolku door noqdo dadkiisa ilaashado dadaal dheer bay rabtaa danguud waa lama huraan maxaan libinay ku goobay guhaad iyo cilmu taysay wax badan aan gaabinayay sidii diinkii gurguurtay intaan gogashii calownay maxaan hadba dhinac u guuray maxaan libinay ku goobay maxaan gooha iyo reenka in badan la gucleeyay waayo maxaan libinay ku goobay ganjeel walba ku istaagay xasuuso maxaan gumaaday go'aano maxaan ka qaatay kaskaygana aan ka gooyay wadada gocondhiyo xajiinta garaadku markuu shaqeeyay ee aan gartay aayahayga maxaan guubaabo buuxda naftayda ku gaaday waayo maanta waxa weeye codkiinu xaguu gaaraa codkiinu xaguu gaaraa maxaa ka wada waxa weeye inta cod baa keensateen waxa idin sheegayaan halkan ma aha maxay ahayd doorasho waxa weeye isdiiwaangelin waxaan isku diiwaangelinayaa qof iyo cod marka qof iyo codkaas waxa weeye inaad ka faa'iidaysataan sidii la idin sheegay waa inaad qaadataan qof walba meesha allaale meeshii ka hor timaada ee uu hortaagan yahay buu iska diiwaangelin karaa kaloo ku faraxsanahay diiwaangelinta qof iyo cod ah oo sida horeba looga soo hadlay qofku waa inuu iska hubiyo meesha uu qoranayo iyo meesha uu ka codayn doono aad baa waxaan ugu faraxsanahay aniga iyo idinkuba in codkeennu maanta uu waxgadayo maanta waxaan dooran karaa qofkaan rabo kaana rabinna ma dooran karo anaa eri karaa wax badan ayaa beelaha inala midka ahi iyo inaguba aynu ka cabanaynay siyaasadda wax kuma lihin waana la ka tegey haddaadan isdiiwaan gelin ma codayn kartid
hadda marka isdiiwaan geli si codkaagu qiimo u yeesho waxa weeye xafladan waxay ka turjumaysaa ama ay tahay xafladan beelweynta Cabbaas Muuse Suradir waxa weeye qof iyo ololaha diiwaangelinta doorashooyinka wacyigelinta Puntland inaynu ka qayb qaadano oo si mugle uga qayb qaadano waayo wax la yiri yaad cadhoonine maanta ciilbeel maanta inoogu dhowdahay Puntland intii la dhisay waxaana filayaa maanta inaynu la soo baxayno wixii aynu ku ciilbeeli lahayn maxamed cali TV-ga iyo raadiyaha dowladda baran Because